waxa lagu yiri war gabadha ay ahayd waa inay edab lahaata waa inay asbaabaha sharciga ku ismanaataayo waa inay dastuurkii Alle iyo amarka raacdaayo waa inay dharkii lagu ogaa ku asturnaataayo waa inay ardaagooda iyo aqalka joogta waa inay asxaan waalidkeed ugu adeegta waa inuu khiyaarkii geeyaa soo ardaa dhigo marsi hadday albaab reer kale oodafada jiidho Afrika iyo Asia hadday subaxba meel aado Obama iyo Bush hadday u ashtakoonayso ifka lagu cadaabiyo jimbay oridii taybale oo macnaheedu waxaan kaga hadlayay gobadhahan intay boorsooyinka waaweyn qaateen afka casiisteen indhaha madoobeysteen backgroundka diyaaradda taaganta haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa beesha caalamka sida qaramada midoobay midowga Yurub jaamacadda Carabta urur goboleedka midowga Afrika UN hay'adaha xuquuqul insaanka kuwa deeqda bixiya United Nations iyo AU waxaan u cadeynaynaa u qeexaynaa u bayaaminaynaa u soo bandhigaynaa xaq iyo xuquuqdii qismiga iyo qaybtii aan ku lahayn arrimaha Soomaaliya in miiska naloo saaro shuruud la'aan yaa u dirsaday أو شغلة إلهي سبحانه وتعالى وهم أمر الدمر إن يقولي هذا الشغلان هذا بأخلاقنا لهذا آيات القرآن آيات وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إلهي وحده يقولي إن كنا قاعد الدمر إذا بأخلاقنا لهذا حقوق ذا يهدي بحكم أي حق رجع إنه يقول هي نيلالية وبدكينا نكوريا أقل كينا يقولي إن نطاق هي ميل لو يدمر كم ضعيني على يسوع شرحان أنت أفعل ستان ده ما دبيستان هدي مصرية مالية مقعية منفعة الدنيا هالراديين ميل لا يكون قرنت هذا المجرد وأنا برنامج هذا اللي يسكو خلي يرميها هوينك يرميها سيدة مارس وشيكون كذا تكلم خلديه حاجة يكون قرنت إلى يقولي هنا تشوق كوير الرجال قوامين على النساء تمر يقولي رجع مامل كي يتلذ وقدم بهاي دفاع عدالك يدوديس كدالك يكورتك دقن حماده يلا دقالك مسلمان سوق يسوقد أمنية هؤلاء صار رجع بالله حل صار الدمر كشقة كماله أفارها أنا يسكو قلنا هو دمبي كبائر